بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومدة الصوماليات ومدة الصوماليات ملك استجوتين أدي السلامية مقاعيق وحلا دها حامد عبد بله نانستي دخاص كا أما كوعان كاي وحلا دا قبيعي أدي مركوبة دي السلامية أما عد كان مانتا دي سو قد بنيو أما فرينتن مانتا دين دوبيو وحان رباين يدين نقطو إذا كنتو سالة قادتان أما يدين أهوانو taas oo ma taqaanay wax ku oola runaantii horta qofka bini'aadanka khaasatan noloshiisa isaga ayaa go'aamin kara hadafka dheer iyo ma taqaanay hayaanka dheer oo ugu jiro in ma taqaanay riyadiisu ay rumayso waxa kale oo aan rabaa in qofka maanta jooga waddanka Soomaaliya iyo qofka maanta jooga waddanka Libya ay ku sugan yihiin laba marxaladood oo ah mid walwala iyo mid farxada runtii maanta waan dareemi karaa qofka aan la hadlayo ama qofka aan isku afkarnay ee maanta ifahmi kara oo qof Soomaaliya runaantii aan waxaan ahay maanta shakhsi kaas oo taariibe runaantii adiyaan taariibka kaaga sheekeeyo ama si qasaariisan kaaga sheekeeyo runaantii waa mid caloliyo walwal walaa adig uga abuuraysa balse aan waxaan ka soo baxay waddanka Soomaaliya sideedii May 2017 iminka waxaan joogaa waddanka Libya iyadoo ay bishu tahay 2018 bishii labaad haddaba hayaanka dheer iyo waqtiga dheer iyo muddada fog ee maanta waxaan ka soo tagay magaalada Boorama haddaba hayaanka dheer iyo waqtiga fog ee u dhaxeeya marxalada intaas oo dhan waxaan ku soo qaatay jeel ama kaarabuush waxa uu taqaano ama xoosh sad u taqaano runtii maanta haddii aan kaaga sheekeeyo dhibaatooyinka Libya yaala iyo dhibaatooyinka yaala taariibka runaantii waa mid aad ka moraal jabayso runaantii waa mid aad ka marooro dilaacayso runaantii taariibku waxa uu si saxan uga bilaabmaa marka aad soo gasho saxaraha intii hore waxaan soo raacay laba doomood runaantii doontu waa mid halisteeda leh waa mid khatarteeda xambaarsan waxaan soo raacay 22 May boosaas ayaan ka soo raacay annagoo ahayn tirada ama se inta aan ku saarnay doonta 160 qof runaantii de wad dareemi kartaa 160 qof oo doon saaran dhibaatada ay leedahay ama se ma taqaanay badweynta marka ay doontu gaadho runaantii qof kasta waxa ku abuurmaysa cabsi gaar ah runaantii waxa ku abuurmaysa in ma taqaanay qofka bini'aadanka uu yiraahdo talow tani maanta ma tii aad ku dhiman lahaydba alxamdulillaah rabbil caalamiin 22 May waxaan ka soo degay Yemen anigoo la igu soo qaaday ma taqaan gaari noo soo diray taxi nin la yiraahdo Yunis waxaan imanay 22 May adu waxaan joognay magaalada Yemen gobolka Jorreyda la yiraahdo alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta bishii 14 waxaan ka soo raacay Yemen doon waxaan ku yimiday waddanka Suudaan anigoo Suudaan fadhiyay 8 maalmood kadib waxaan soo galnay saxaru waxa uu leeyahay khatartiisa biyo laguma siinayo ma taqaanay cunto dheeli tiran laguma siinayo xorriyad meesha aad fadhidaa waa meel ciriiriya dhibtaas oo dhan waxaad u xamilaysaa si ma taqaanay maxaa ka galay xorriyad laana kadib waxaan yimiday Libya waxaan soo galay maalintii ciida xagga dadka qaar ay ka faraxsanaayeen maalintii ciida ee ay wajigooda nuur iyo iftiin fara badan uu ka laga dareemayo annaga waxaan ahayn dad taariibayaal ah dad dhibaateysan dad markaas dad markaa ma taqaanayay hadaf iyo hayaan kule inay Yurub galaan balse Yurub aad gashid Yurub waxa ka horeeya yaabkiisa dhibaatada ugu badan aad soo aragtay dhibaatada igu fara badan leh ee aan soo arkay waxa weeyaan horta wax xorriyad la'aan dunida waxa shayga ugu qaalisan qofka bini'aadanka soo wajaha khaasatan waa xorriyad wad garanaysaa Nelson Mandela wuxuu ahaa qof xabsiga runaantii wada akhrisan kartaa anigu khaasatan maanta idin kama sheekeyn karo xabsigu waxa uu yahay ani khaasatan naftayda waxa ugu daran ma taqaanay aan la kulmay waa xorriyad darradu waxa ay ka turjumaysaa in maskaxda bini'aadanka maskaxiyan in laga gumaysan karo aqliyan in laga gumaysan karo fikirka iyo maskaxda taada ku abuurana in la bedeli karo oo cuno cab kaliya lagu oran karo waxaan ku jiray 7 waxaan ku jiray 8 bilood baan xabsiya 8 bilood
marka ka dambaysa haa waan arkay runtii dhibaatooyinka aan arkay in mugale waxa kamid ah in mataqaanay gabadh Soomaaliyeed ama gabadh walaashayo kala oo maanta qiimaha ay ka leedahay Soomaaliya aad u dareemi karto in hortaada wixii doono lagu sameyn karo in qofka bini'aadamka isagoo dambi gelin la iska dili karo in xataa waxaan la kulmay xoosh aanu soo marnay Nigerianka iyo mataqaanay nijarka la keenaa habeenada kamida waxa dhacday waa hurdaan waa soo toosay waxa ku soo toosay hibil waa dhintay nin loo oran jiray mataqaanay rasta waa dhintay ma qiimeynaysid xooga iyo mataqaanay awoodda uu leeyahay laakiinse kaliyaata waxa dishay hal xabo oo lagu dhuftay halka xabo lagu dhuftay waxa mataqaanay saameyn weyn ay ku yeelatay maskaxdayda runtii isagu wuxuu qof Nigeriana waxa uu joogay wadanka Libya markii uu joogay waxa uu isku dayay inuu difaaco mudiirkiisii ama mataqaanay mudiirkiisu macnaha waxa weeyaan qofkii maamulay isaga mas'uulkiisii inuu difaaco mas'uulkiisii oo laba Libyaan haystaan ay isku dayay markii uu awood caabisiri waxa dhacday in xabad lagu dhufto nafxarbiga albaabka ugu soo qaraacay waqtiga anaguna maanan ahayn qof dad furi kara goorma lagu soo fasaxay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta ay xorriyadii bilaamatay maanta waa bishu xilligay tahay wallahi ma garanayo sababta lagu fasaxay lacagta bixisay lacagta waxa bixiyay 6000 ay bixiyay 2000 dollar waxaan ku caawiyay saaxiibkay ilka xasan in la raaho Allah ka jisaysiyo ninkaas ilka xasan la raaho aniyana kan ila socdaay ka bixinay waayo waa qof saaxiibkay maanta Libya ku dhibaateysan umana fiirsan kartid dhibaatada uu maanta ku jiro alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin ma oga waalidiinteedu inaan ka bixinay ninka waxa uu sheegaysaa dhalinyarada iga dambaysan waxaan leeyahay saaxiib hore waxa loo yiri dhagihii allawaaniya waan sama maanta waxaan ku leeyahay saaxiib hadda tahay qof jecel inuu soo taariibo maanta waxaad halka jacaylka waxaad ugu bedeshaan nacayb taariib saaxiib wacyigelin kasta iyo mataqaanay hadal kasta oo lagu yiraahdo waxaad u dhuuxdaa sidii hadal hooyada kugu tiri barnaamijka dawladda Soomaaliyeed oo ah in dadka dhibaataysan dib u celiso sidee wallahi horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in dawladda Soomaaliyeed horta aan weligii maarag inta aan jiro dawladda Soomaaliyeed meel ay ka jirto way waxaan ka yimid gobolada waqooyiga alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta in safiirkii hortaagay waa mid aan aad iyo aad ugu faraxsanahay teeda kale ummadda Soomaaliyeed barnaamijka loo wado in dib loogu celiyo wadankoodii waa mid aad iyo aad u qiimo badan way hore ayaa loo yiri lama huraan waa cus jilaal dalkeen hooyo in dadka qaar ay ku noqdaan waa mid aad iyo aad u qiimo badan